wafdigii ballaanaa ee uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa si aan kala har lahayn loogu soo dhaweeyay deegaanada Og iyo sidoo kale Caynaba. Wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal kaga soo boqolay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana ugu horeyn si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Og ee gobolka Saraar. Kumanaan ka mid ah shacabka reer Og oo lulaya calanka xisbiga kulmiye kulan dhawaaqaya odhaahyo ay ka mid yihiin gudoomiye Muuse Biixi Gayuga ma ka maarmaya ayaa madal bilan oo fagaara ah waxay ku soo dhaweeyeen wafdiga iyagoona sheegay inay codkooda cududooda iyo aqligoodaba hore u siiyeen kulmiye haddana siinayaan. waxaanu nahay dad jabsan oo soo jireena oo ilaa 60 isku duubnaa oo maxay haytay meesha ay markaa marayaan ba sidaa hadeer oo kale ku ahaa raaxa madaxweynaha mustaqbalka dhow waxaanu sheegaynaa in degmada Og ay tahay degmo u rigaysan ama u codayn doonta xisbiga kulmiye. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa geestiisa la hadlay bulshada reer Og isagoona cod dheer ku sheegay in xisbiga kulmiye guushiisu ay muuqato. annagu dacaayad hadal tiro wax badan baanu is oranaynaa markhaatiga iskuma furo xataa haddaanu is eedayno cidda markhaatiga furaysa waa shacbiga Soomaaliland. kulmiye haddaanu nahay xisbiga kulmiye haddaanu nahay oo tartanka ku jira annagu waxaanu nahay xisbigii talada dalka hayay waanu ka duwanahay labada xisbi ee mucaaradka ah shaqadaanu anagu gacanta ku haynaa. xisbiga kulmiye wuxuu sheeganayaa inuu tacab badan geliyey maruu nabad ka shaqeeyo maruu iskuulla ka shaqeeyo maruu jaamacad ka shaqeeyo maruu biyo ka shaqeeyo mar uu xoolaha nool daaweyntooda iyo tallaalkooda ka shaqeeyo maruu caafimaad ka shaqeeyo. ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay bulshada isagoona u mahadnaqay dadweynaha reer Og ee saacada labadii ilaa saaka noo taagnaa codada ee cirrooliyo caruur leh ee haween leh ee culimo leh ee da' leh ee bacadka noo taageeray dhidka inay tusaan taageerada iyo kalgacalka iyo maxabada ay noo qabaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xisbi ahaan iyo wafdi ahaanba jazaakumullahu khayr. intaasi kadib wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye Muuse Biixi Cabdi waxa aan si xad lahayn Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyadoona bulshadu yar iyo weyn aan u kala harin soo dhaweynta jawiguna sidan ayuu noqday markii gudoomiyuhu soo gaadhay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. odayaasha waxgaradka cuqaasha salaadiinta iyo siyaasiyiinta xisbiga ku abtirsada ee deegaankan ayaa hadalka iska daba qaatay. warta ma balaqaano war wixii kale waa mugdiya muuqaalku dooran weligiina kulmiyo areer Saraare faadaa wanka gelin ma jiro maanta wanka gelaysa madaxweyne qofka yar iyo kawow iyo mid kasta madara waxaad ogu doontaa codkii Caynaba koobo 30 kun oo cod maanta waxa ku diyaara gobolka Saraar oo aan beenahayn ninna dhalashu kuugu dhaadhacay bidin ninna dhuulu kuugu dhabar dhigay. shirkan quruxda badan kulankan lagu soo dhaweeyay madaxweynaha ma sha Allah baan leeyahay ma sha Allah aynu halka ka hayno. wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland wasiirka dib u dejinta wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada ayaa bulshada reer Caynaba mahadnaq weyn u soo jeediyay. waxay ahaayeen aasaasayashii kulmiye doorashadii 2003 2010 waxay ahaayeen taageerayaashii ugu luxdan ee xisbiga kulmiye ay ahaayeen. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta baaxadda leh ee bulshada reer Caynaba ku maamuuseen gaar ahaan reer Caynabo oo ilaa saaka ilaa cayadu dhacday noo taagnaa oo taageerada xooggaara iyo kalgacalka iyo niyadsamida nagu soo dhaweeyay xisbi ahaan iyo wafdi ahaanba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. jazaakumullahu khayr. abaalkaana waa idiin ognahay kii horena waan idiin ognahay in badan oo horena soo dhaweysana waan ognahay kulmiye halka kaga jirtaana waa ognahay. waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar.